بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa idaacada Qarajo Board oo aad toos uga daawataan habeen walba oo sabti ah marka ay tahay saacada 7:00 fiidnimo barnaamijku waa barnaamijka shahwana iyo shaqo waxa marti igu ah saaxiibkay qaali ah Cabdi Xakiin oo taariikhdiisa hadaan hal iyo laba ka taabto aan urubaawi wadamo badan ku soo noolaa meelo badan soo arkay inta aan xusuusta calaamadaha Afrika Europe iyo hadda uu Mareykanka ku nool yahay marka waa barnaamijkii shahwana Cabdi Xakiin ku soo dhaw barnaamijka oo ku dhawaysaa Cabdi Xakiin waxa nooga wartaa nolosha qurbaha kulli qurbaha in badan baad ku soo noolay meelo badan baad soo martay bal nolosha qurbaha Mareykanka waxa ka jira ee dhabta ah bal nala wadaag aniga iyo dhageystayaasha Qarajo Board waa mahadsantahay marka hore Miftaax waa inta aniga qurbaha u badnaa nolosheedii waddanka Ameerika ay dambeysay carabaha oo ku noolaa Afrika sidoo kale ilaa meesha ugu dambeysay gaaray Koonfur Afrika kadibna hadda ugu dambeyn kulli waxaan ku noolahay bal Ameerika magaalada Chicago Illinois waa meesha ugu deganahay adiga nolosha qurbaha runtii qofka si uu arkaa laakiin aniga waan qurbaha marka nolol adiga jirto dad badan ay jaanis yeeleen ka faa'iideysteen dad badan ay leeyihiin waddanka aan nooceliyo marna ka dhamaan qurbaha waana dib badan yahay waana nolol adag yahay dadka qaar opportunity yeeleen waxbarasho yeeleen jaamacadaha dhameeyeen shaqooyin fiican bay heleen qaarkoodna ayagoo jaamacadaha dhameeyay oo digriyaas haddana shaqo waayeen waddanka Mareykanka waa iska taqaanaa dad madow baa jiro ay dhahaan African American oo jaamacada ka soo baxay meelaha qaar markii buuxiyaan applicationada waa lagu celiyaa ninka caddaanka markuu yimaadana applicationka waa laga qabtaa shaqadana wuxuu ka helaa marka maxaad u malaynaysaa nin Soomaali ah waa muddo ku dhalan marka hore Cabdi Xakiin sax markii la fiiriyo nolosha qurbaha inta quruxda badan baa ka aragnaa anaga wax qurux badan lama sheegaysa see way adag tahay iyo waxa aan arkayno farqi baa u dhaxeeya bal isu kana qabadsii ama nafaansi barnaamijkaas aniga dhageystayaasha ama daawadayaasha Qarajo Board sida xiriirda horta Soomaalida qurbaha waxay u tagaan majority dhaqaale door xiriir marka ka hadalno baahiyo ma tagaan laakiin badanaa waxaan sheegnaa anagana nageedaan dadka asiiliin kuwa qaxootinima loo qaadaa dhammaan dhaqaale la raadinaya waddanka Mareykanka dadka taga dadka Yurub taga Soomaaliya ku hadla badanaa waxay rabaan dhaqaale raadiyaan si wada ognahay marka dadna dhaqaalihii intay sameeyeen xoogaa ilaa Afrika u soo wareegeen Afrika ganacsi wax ka bilaabeen kuwan xaggee joogaan marka dadka waxay qaataan jeeg boqolkiiba 80 lacag ma taala jeeg ay qaataan waxa laga shaqeeyaa lacag ma kii lacag wigi bay qaataan wigi baa loo siiyaa qaar waxay ka shaqeeyaan maxaa loo yimid warehouse kuwa tagaasida wadaan kuwa tagaasida ka shaqeeyaan waa lacag doon soma adiga west ama taxi iyo track iyo adiga jaamacadda oo kale track jaamacadda ka soo taxi waa college waxaan maleynayaa iyo shaqooyinka assembly ay dadku warehouse-yada ka shaqeeyaan ama Soomaalida badanaa kama shaqeeyaan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan dadka oo waddanka Mareykanka u dhashay because Soomaalida professional ma aha Soomaalida kaliya waxay garanayaan inay jaamacad aadaan inay taxi wadaan warehouse ka shaqeeyaan track aadaan laakiin shaqooyin professional ah jiro sida electric oo kale sida maaragtay dhismaha oo kale malaha Soomaalida sax wala banaa kaliya marka hadda Soomaalida waxay wataa taxi iyo track ay wataan wixii dhalinyarada ahaa xagaas ka shidantahay maxaa ka salbaatay jir track wada dadkaas dadka jir Soomaali waa dadkii loo xaqay wax bartaan maxaa ciqaabay dhaqaale raadinaya isku daay $2,000 diraayo okay Cabdi Xakiin dadku lacag walba ay sameeyaan nolosha farxad ku dareemaan ila nolosha waxa loo sameeyaa farxad wallahi qaar badan adiga farxad ku dareemaan dadku suun maaha qaar badan way dhibayeenba dadku Ameerika gudaan iyo shaqeeyaan Mareykanka laakiin Afrika raaxata ومحسنتها عبد الحكيم برنامجكن halkaas ku eegyahay
iyo shaah wanaagsan